السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waa salaamaya asxaabta channelkayga ku xiran waa anigoo ah Asmaa halkaad igala socotaan waa channelkayga Asma's Channel haddaad igu cusubta waxaan ku leeyahay soo dhawow gacmo furan qalbi furan haddaad hore ila joogtiin aad ayaa u mahadsantahay laagta naga ilaawin asxaabay maanta waxaa idin wadaa dhacdo xanuun badan oo ku dhacday gabar yar oo Yemeniyad ah gabadhan Yemeniyad ah iyo familkeeda waxay ku noolaayeen cadan aabaheed iyo hooyadeed ayay la noolaayeen aabaheed iyo hooyadeed ayaa isfahmi waayay saddex gabdhood ayay ahaayeen gabadhan liqa ayaa macnihii ugu weyneyd ilmaha oo 13 jir ahayd labada kalena way ka yaryaraayeen adigu aabahood saddexdii gabdhood uu ka qaatay hooyadood maadaama ay kala tageen nolosha isku fahmi waayay saddexdiisa gabdhood asaga yiri anaa haysanaya kursanaya يعني dhibaatada ay faamilada burburka faamilada dhibaatada ay leeyihiin ay dhacdadan yani ama arintan ay ka turjumaysaa oday Yemen cadan buu joogay uu baxay wuxuu qaatay yani calashan xaas uu guursaday oo markuu gabdhaha hooyada furay kadib guursaday iyo saddexdiisa gabdhood ayuu watay wuxuu geeyay wadankaas Masar buu geeyay Masar wuxuu la hadlay nin isaga walaalkiis ah oo Cabdallah la yiraahdo macna Cabdallah ayuu yiri yani ninkaas ayuu wuxuu yiri gur u raadi cida adigu building uu leeyahay nin Yemeni ah oo ayaga qabiilkooda ah buu wuxuu uga helay shaqo meeshii falaadkii ayay loo kireeyay ay degeen aabuhii wuxuu dhahay yani guriga dhan kaamiraha la igu xiro wax walba ciyaalka barta anoo jooga Mareykan u socdaa anoo bartaas jooga yani Mareykan jooga uga maamulo cida oo aan xaaladooda ula socdo adigu odaygii duqii dhalay gabdhahan liqa iyo gabadha uu ku socdo qasadan iyo duqii dhalay uu iska baxay wuxuu aaday alashan Mareykan buu aaday wuxuuna yiri idinkana markaan Mareykan tago oo wax isku toosto ayaan idin soo wadi doonaa oo Mareykan idin keeni doonaa inta ka horeysana bartaas Qaahire ay sii deganaad halka ay sii jooga adigu odaygii uu iska baxay ninkan walaalkiis ahna wuxuu ku yiri ka warhay gabdhahayga yareerka dib ka warhay wana kukaas guriga dhanna kaamirooyin ayuu ku xiray kaamiradana ayuu gurigiisa kala socon jiray maxaa dhacay waay waxaa dhacay in ninka Cabdullaahi la leeyahay oo adeerkood ah inuu gabdhaha aad u dili jiray oo tacdiib ku sameyn jiray tacdiib yani dadka dambiyada waaweyn galo la rabo in war iyo sir iyo laga helo sida loo cadaabo maaragtiin ayaa gabdhaha yarka u cadaabay ninka koronto ku qabanayay yani diliyo dhaawacyo badan ayaa jirkooda lagu arkay wuu dili jiray adigu aad buu gabdhaha u dilayay ilaa gabadha liqa oo hadda qisadeeda ku socoto uu ka gaaray heer inay uu maaragta uu nafta ka jaro ilaahay baa nafta gooyay laakiin sabab ayaa looga dhigayaa adigu sidaas ayuu gabar yarta ku dilay maalmaha kamid ayaa xaaskiisa iyadoo qaylinaysa wax wacdo odageeda iyadoo dhahaysa yani saasa dhacday gabar yarta waa la dilay soo orod soo wax samee carashan soo maadaama Mareykan joogo adigu meeshii ayaa maaragta ninkii meeshii jiray muxuu Mareykan oo gabar yarta dhalay uu soo hadlay ninka cimaarada iska lahaa Yemeniga wala soo hadlay police wuxuu yiri gabadheeda yarta caawi familkeyga caawi reerkeyga caawi oro u tag adigu gurigii baa la yimid gabar yarta askar boolis waxba la wacay adigu waxa la ogaaday yani Cabdallah waqtigu baxay iyo waqtiga yani ii sheeg muxuu ahaa adeerkeed waqtigu baxay iyo waqtiga ay gabadh yarta yani wax gaarayaan mission ku dhacayo iyo waqtiga ay xaas ku wacayso odageedu ay leedahay gabadh yarta dhibkaas ku dhacayso soo hadal dadka yani waqti baa u dhaxeeyay adigu 8 saacadood duhurnimo ayaa gabadha la dilay naagtan waxay wacday ninka 10 saac galabnimo already ninkii adeer ahaa wuu fakaday oo yani diyaarad iyo wuxuu raacay lama sheegi karo kale dhankaas Yemen ayuu u fakaday adigu waxaa la ogaaday yani arinta inay yani kaamirooyinka inay qarisay xaaskiisa yani islaanta oo odagu u qabay inay kaamirooyinka qarisay waxyaalo badan ayaa la ogaaday adeerkii waa la waayay halkaas tuhun baa ka yimid xataa aabaha waxaa looga shakiyay inuu ogaa in gabadhiisa uu dilay walaalkiis uu asna asagoo yani badbaadsanaya xaaskiisa
wax badan daboolay maadaama xaaskiisa ay waxyaalo badan ay ogeyd way qarisay adugu alxaasil dilka gabadhaas wuxuu ku cadaaday adeerka ku cadaaday maamada aayadeeda oo yani aaya anaga waxaan dhahnaa yani islaanta aabaha qabo yani islaantaasna way ogeyd mishinka waxbay ka ogeyd adugu waxa iyada badbaadiyey oo hadda inkastoo weli ay qadiyada socoto qadiyad cusub ay tahay oo hadda maanta iyo shalay ay socotay ay tahay haddana waxa yani ii sheeg booliska ayaa weli faraha kula jira laakiin aabaha wuxuu isku dayayaa gabadha dilkaasi dhibka loo geystay xadgudubkaas intaa la eg inuu wixii dhan daboolo oo uu xaaskiisa tartiib maarata uga dhex saarto waxaan iyo dacwadahan iyo waxaan walaalkiisina wuxuu rabaa yani calashan inuu badbaadiyo oo markuu xagga tago inuu maaragta Yaman uu asaga walaalkiis xataa badbaadiyo ayuu asaga qorshihiisa yahay oo walaalkiis aan maaragta aan qaab kale lagu dhaho waxbaa lagu dhameynayaa inuu maaragta inkastoo safaaradda Yaman lala hadlay oo faraci dil lagu raadinayo yani aad loo raadinayo booliska Yaman xataa ay raadinayaan oo wadanka laga dhex raadinayo Yaman haddana aabaha wuxuu isleeyay walaalkiisna badbaadi xaaskiisana badbaadso adugu booliska ayaa arrintii hadda gacanta ku haya dhacdadan xanuunka badanna habeen hore ayay ka dhacday wadankaas Masar gabadha yartaana sidaas ayaa lagu dilay meydkeeda loo soo saaray loona aasay filimkana waxaa ka dambeeyay waa adeerkeeda iyo sababta ku kalifaysa ma sheegi karno ilaa hadda inuu gabar yar oo adeer yahay uu tacdiib ku sameeyo intaa la eg oo uu ilaa ay heer ka dhimatay yani ay ka dhimatay gabadhii gabdhaha kale xataa dhaawacyo ayaa ku yaalay gabadha yartahay xataa dhimatay dhaawacyo badan ayaa ku yaalay oo horay dilal hore oo hore ugu sii yaalay kuwaan hadda ahayn adugu alxaasil dhacdadaas xanuunka badan yani waa iska dhacdo xanuun badan oo kulley ilaahay baa ka magan galnay ilaahayna maaragta reerkaas ha u fududeeyo gabadha miskiinta wixii dilayna allaha xaqa yani ha soo ifsaaro oo ha soo bandhigo qisadana caawa asxaabay intaas ayay ku eg tahay wixii kasoo cusboonaada qadiyada gabadhan iyo sida maaragta iyo inay dad kala dileen ayaaba laga yaabaa qadiyada gabadhan iyo wixii kasoo cusboonaada insha Allah asxaabay waa idin la soo socodsiin doonaa intaan iskaga imaanayno video la mid ah waxaan idin leeyahay fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh